بسم الله مقعي وعبد القادر على حاشين نمدون عبد القادر كنا دقمدا قالكعيو آدي آد بأنسو دوينا يا برنامج كان قرش وداق oo in muddaaba aan la soconay barnaamijyo badan buu leeyahay barnaamijyadiisa runtii waxa farax geliya marka uu ka hadlayo khilaafaadka degmada gobolka mudug iyo cimilada isbeddelka cimilada aad iyo aad buu runtii ii soo jiitaa waa waxyaabaha runtii aan oran karo barnaamij ka horeeyo oo runtii arrimahaas taabta maana arag marka runtii waa ku xiranahay waana soo dhaweynayaa in la sii wadana waa jecel muddo waaba sheegaba runtii sidaas aan u sheegay mudooyada hadda barnaamijka isdhexgalka oo kale qayb weyn buu ka qaataa waana wax degmadan iyo dadka mas'uuliyiinta oo wax gartaahay ay aad iyo aad ugu baahan yihiin waa waxyaabaha annaga shaqadeennaba ah oo inta badan aan qabanno marka qayb weyn buu ku leeyahay qaybta ugu muhiimsanayd buu ka qabtaa marka meeshii annagu 4 qof iyo 5 qof inta isku timaada ay wax oran lahayd asagu warbaahintu ku gaarsiiya marka runtii shaqadii aan haynay waxa oran kara qayb ka mid uu qabtaa waliba ugu muhiimsan aad iyo aad waxyaabaha aan hadda ku danaynayo aan isleeyahay waa qaybta ugu weynba qaybta ugu weyn xilliyada roobabku ama ay da'aan ama bulshadu inta isku timaado dalka deegaanka la kala qeexanayo meelaha ugu habboon oo markuu ka hadlo dadka soo jiidanaysa ka mid marka runtii waxaan dhihi karaa wixii hore uu qabtay ama hadda uu ku dhex jira maahan in la siyaadiyo oo loo helo shaqadaas inuu baahiyo hawshaas qabashadeedu inay baado oo mustaqbal badan ka qayb galo aad iyo aad baan soo dhaweynaya colaadaha ugu badan colaadahana waa ogtahay waxa keena qabyaalad baa kamid ah dadku ay qabiil isku dilahayaan waxa kamid ah roobkaas oo kale waxa kamid ah deegaanka oo kaleeto oo la kala riixanayo oo ay u badan tahay dadku markay abaartu dhacdo xoog iskuma helaan laakiin waxay xoog isku helaan marka roobku da'o oo kaleeto waxyaabaha konfliktiga abuura oo ugu badan bay ka mid tahay oo annaga waqti hadda soonqaad oo dhan waxaan u malaynayaa bishii soonqaad wax yar oo ka mid ah nasiina hel inta kale waxyaabaha noocaas ku dhex jira aad iyo aad koox waxaan arkayay ayaan dhageysanaysa oo meel wada fadhida oo runtii barnaamijkaas wacyigelin ahaan u dhageysanaysa marka waa qaba dad badan ay wax ka bedeshay aad iyo aad baan soo dhaweynaa